Arsenal ayaa markaasi la ciyaari doonta West Ham. Arsenal waxay isha ku haysaa inay sameyso guulo isdaba joog si ay u bilowdo ololaha Premier League oo si qurux badan ay filayso inuu ku sii socdo marka West Ham Emirates ay ku soo dhaweynayso caawa. Gunners ayaa si fudud guul 3-1 kaga gaartay Fulham kulankoodii ugu horeeyay xilli ciyaareedkan halka West Ham ay 2-1 ku garaacday Newcastle kulankoodii furitaanka. Haddii aysan wax kala jirin tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa hubaal noqday mid taageerayaasha kooxda kaliya raje isbedel la siiya 9 bilood oo uu shaqada hayo. Xaaladda labada kooxood markaan eega difaaca Arsenal David Luiz ayaa taamwa kulanka West Ham. Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa sheegay kulankii furitaanka oo ay ka badiyeen Fulham sabab la xiriirta dhaawac qoorta ka soo gaaray, laakiin taam ayuu u yahay kulankan hamarisa. Socrates Papadopoulos oo kubka ka dhaawacan, Pablo Mario anqowga, Joran Mustafi oo muruqa, Emil Smith Rowe oo garabka, Callum Chambers iyo Gabriel Martinelli oo labaduba jilbaha ka dhaawacan ayaa dhamaantood ka maqan kulankan West Ham halka William Saliba uu sugayo inuu ciyaaro kulankiisii ugu horeeyay. West Ham ayaanu hubin taamahaanshiyaha kabtankooda Magnol kadib markii uu sheegay tababarkii Jimcihii sabab la xiriirta dhaawac ka soo gaaray suulka. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa la duray cirbad. Tababare David Moyes ayaana rajeynaya in uu taamahaanshiyo helo kulanka caawa ee Emirates. Jack Wilshere ayaa ku soo laabtay tababarka kadib dhaawac anqowga, laakiin lama filayo inuu ku soo bilowdo kulanka kooxdiisii hore. Xogta ciyaartan Arsenal waxay badisay 10 kamid ah 11 kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay West Ham tartamadoo dhan marka laga reebo kaliya kulanka furitaanka xilli ciyaareedka 2015-16 oo 2-1 looga badiyay. West Ham United ayaa laga badiyay kulamada ugu badan ee Premier League oo ay la ciyaaraan West Ham 31 jeer halka Everton oo 34 laga badiyay tahay kaliya kooxda ka badan. West Ham ayaa laga badiyay mid kasta oo kamid ah 3 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ee kulamada London Derby iyagoo marti ah halka aysan guuleysan kulankan inta uu hogaaminayo David Moyes. West Ham ayaa laga badiyay 199 kamid ah kulamada derbiga 484 kulan oo ay ciyaareen kaliya waxaa ka badan kooxda Tottenham oo 213 jeer kulamada derbiga laga badiyay. ciyaartan 10 fiidnimo ee caawa Emirates laga daawan doona daawade fikirka qaybta hoose ee muuqaalka noogu reeb maxaa laga filan karaa.